xasuustaa jaamacadda ummadda farci galmudug ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada badnaani ka mid ahaa dadkii ballan qaaday in ay wax ka qaban doonaan deegaankan inuu ahaa waxa weeye uu ballanqaadkiisa uu ka soo baxay ra-iisul wasaaruhu markii labaad loo yimid uu ka soo baxay asaguna waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka xildhibaanada ka soo jeeda deegaankan oo dabagalka ku samaynaya ballanqaadkii loo ballanqaaday deegaankan oo hadda aan ka xuskaro laba xildhibaan oo hadda meesha fadhiyo waxa weeye haddii aan uga dabagal lahayn ballanqaadkana uusan ka lahayn eber maantii aan sheegay jirta soo baxaya aad iyo aad baan ugu hambaliyaynayaa qalabka wanaagsan oo la keenay oo dalka iyo dadka u faa'iidada waxaan rajaynaynaa wax ka wanaagsan in la helo duuligii ka baxdo dowlad baan noqonay daawada dalkeena sheekada ay caaway macnaha ama xoogaa xabeebsan iyo xafladii oo mid baa isku yimid laakiin wax jira male waxa weeye ilaahay kalaa ka yeelo madaxda yadii taywanka ahaa walbana waa naha taywanka waxaan taylahay ma aqaanaani oo aan cambaareeyo waa hadda ka soo haray shirkii ismaaciil barkaadka aybaaliya Soomaaliyeed oo lagu siinayo dowladda shisheeye oo bedel lagu iibsanayo biriga lagu xalaashayo ka qadin maayaan waa caymo waa macnaha ka ficilaya dadka muuqanaya waxa weeye madaxda sharafka oo hadda dalka maanta madaxda ka heer wasiir iyo heer kastaba horta anigu dhawaan haddaan ahay madaxweynihii hore Emerland waxaan bixin doonaa bilado baan bixin doonaa ugu horeeya khayr oo ay ku xigaan wasiiradu oo dhammaan ay ka soo qayb geli doonaan biladaas waa bilad aan weli la bixin weyne sababtoo inaga bilad bixisanaanayo wax miisaaniyadka jirta waa mahadsantihiin ilaahay khayr ha siiyo